intaasi kadib ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay socdaalkiisa nabadda ku soo mareen degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud iyadoona qaybaha kala duwan ee Xeraale ay sacab iyo caleemo qoyan ku soo dhaweeyeen madaxweynaha gudoomiyaha degmada Xeraale Bashiir Daahir Yuusuf ayaa ku soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha magaalada Xeraale madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxaan leeyahay soo dhawaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay bulshada Xeraale inay soo dhaweeyaan walaalahooda ka maqan dib u heshiisiintana ay qaataan waxaan kala shaqeynaynaa anagu wixii aad doonaysaan waxaan wadnaa nabad waxaan wadnaa dib u heshiisiin waxayna ka muuqda inaad jeceshihiin midnimo laakiin hal kaliya naga hartay bes idinku inaad isu roonaataan sidaas darteed hadda aan bilaawno dib u heshiisiintaan bilaawno